wasiirada wasaaradaha warshadaha beeraha iyo ganacsiga ee Somaliland ayaa shir albaabada u xiran yihiin la yeeshay maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Gabiley. wasiiradani oo markii shirkaasi soo ilaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka Gabiley ay kala hadleen abaarta ka jirta deegaano hoos yimaada gobolka Gabiley. hase ahaatee waxa ku hoos lamaana arrin ay kaga wada hadlayeen shirka ay ku dhawaaqeen 27ka bisha isbahaysiga mucaaradka iyo madasha wada tashigu. kulanka ujeedadiisa iyo muhiimadiisuba sidii abaarta baahsan ee gobolka iyo waddankaba ka jirta heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo intaba wax la isaga weydiin lahaa iyo sidii goobaha abaaruhu ka jiraan loo soo kormeeri lahaa iyo sidii riboodada loo soo keenin lahaa ayuu kulanku u badnaa. marayaan inaad ka shiraysan arrinta xalay ee madasha wada tashiga 27ka bisha ay ku dhawaaqeen shirna isku iman doona isla markaana ay ku dhawaaqi doonaan dawladda. arrintaasi oo shirka maanta albaabada u xirnaayeen ee aad gasheen ayaa laga hadlayay ku salaysnaa ujeedada rasmigiina kulley waddanku sharci buu leeyahay iyadoo su'aashaadaas uun dee aan ka jawaabayo ajendaha iyaga waddanku sharci buu leeyahay nidaam dawli uu leeyahay system buu leeyahay axsaab buu leeyahay wixii dee xisbi mucaarad ah ee jira waa xisbi mucaarad taasi waa sax aragti buu leeyahay qarannimada wax yeelaya ee dawladnimada wax yeelaya ee shir aan sharci ahayn ku dhawaaqistiisa waxaasi wax loo dul qaadan kara maaha shacabkaana ka jawaabi doona kulley su'aalahan aad yara xiisaynaysan ee weydiiseen dawladda haatan joogta ee kulmiye wax saskaliya iyo waxa ka baqataa horta meesha ma yahay weli adduunka joogo inta haysta ma jiro waxa soo haray 17 u ciidaha 17ka u ciidaha boqolkiiba waxa ka fircamay asala yar oo la yiraahdo wadani xagu ka yimid taariikhdiisu halka bilaabataa asaladii cid Soomaa u cid waa xisbi aan odhanaynin dawladdii way dhamaatay dawladdii way burburtay laakiin asalada yar ka baxday u cid mid asala maxay tahay beeraley baynu nahay xoolo markay cunaan siday noqdaan shirkayaga maantuna wuxuu daaranaa arrinta abaaraha gobolka ka jirta sidii ka xukuumad ahaan ama tusaraha noqoto ama dawlad hoos ahaan ama dadweyne ahaanba la iskaga kaashan lahaa ilaahayna loo bari lahaa runtii inuu abaaraha inaga soo jabiyo waa ilaahay uun baa inaga saari kara xaaladan aynu ku jirno inta roobka iyo nimcada ilaahay inoo shubayana aynu inagu dadkeena abaaruhu haystaan waxaynu ugu gargaari karnaa gargaar aynu u samayno inuu nabadda inoo xasiliyo oo inoo sii hayo nimanka hadallada ku yeedhay runtii inay ka noqdaan baa qurux badan midda kale de waxa la yiri waxa weeye hadday dub leeyihiin dabadooday ku qarin lahaayeen. sidoo kale waxa wasiiradu shir noocan oo kale ay la qaateen maamulka magaalada Wajaale waxaana arrintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Dr. Maxamed Awdaahir kusimaha maayirka magaalada Wajaale Mursal Nuux Ismaan iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Liibaan Maxamed Jibriil. waa arrin qarannimadeena ay ku dhisan tahay inna laga bari maayo in nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyada waa lagu wada qasban yahay waayo nabadgelyada innaka ku nool iyadu inuma noola walba xukuumadda maanta talada dalka haysa uu garwadeyn ka yahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Suuraanyo ay ka fulisay degmada Wajaale waxaynu ogsoonahay saddex mashruuc oo waaweyn. Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley.